السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحاكو برنينا محوها إيشا إيو ماش كو إلى شنتهاي محوها بوني أوبت وحلو يقارن معناها إيش وحاكو ريكسن دور لف وكا إلى لنايا إن دابع وسو قار سو مركا وحاكو برندونا لفاهاس إيش إلى لنايا وحايهين إيو هدي دابع وسو قارو محوها بروبلم كو كإيمان كارو إيش سو قاري كارو soo marka isha waxa ku ilaashan tahay lafa aad u badan oo aan arkeyno soo isha markii sana u fiirsid isha marka fiirsid waxa u malaysaa toos inay tahay laakiin isha waa gees oo kale sababta waxa arkeynaa hadaa fiirsid bony orbit kan in oo geeskan oo kale ee isha soo baxsan tahay sababtaas waxay tahay optic nerve ayaa geeskaas ka soo baxa soo marka geeskan oo kale waaye sababta isha markii hore u fiirisid ay saan ugu muuqato oo wax hor ku soo fiirnaa waxay tahay muruqyo ayaa ku yaal meeshan geesaha kor hoos dhankan oo dhaxda medialka ah qaybta lateralka ah qaybtaas ayaa marka ka dhigaysa in mar walba oo muxuu ahaa symmetrical oo dhaxda u ahaado oo straight oo u jeedinayo soo marka lafahaas oo uu ku dhex macnaha oo ku dhex jiro oo ku ilaalinaya in oo muxuu ahaa dhaawac uusan soo gaarin iyo waxyaalo fat tira badan macnaha dufan oo adag oo muxuu ahaa oo ka ilaalinaysa macnaha in oo wuxuu noqonaysaa sida cushion oo kale wax oo muxuu ahaa plastic oo muxuu ahaa bubble wrap loo yaqaan bubble wrap waxa waaye baxyaasha qaar oo ku imaada waxyaalaha oo fragile-ka ah oo loogu talagalay waxa gudaha ku jira inuusan jabin soo marka waxa ka soo qaadi kartaa fatskaas oo ka dhex buuxa isha ku dul wareegsan iyo muxuu ahaa laftaan oo ku dul wareegsan baa ka weyn oo ku dhex jiro bubble wrap oo ku dhex jiro isha dhexdeeda oo kale marka wuxuu ka ilaalinayaa dhaawac inuu soo gaaro soo marka waxaa la sheegaa ilaa 7 muxuu ahaa laf ayaa ku wareegsan oo kala duwan taasina waxay ku imaatay markii cunuga caloosha uu ku jiro lafahan ma isku dhagsan way kala baxsan yihiin sphenoid bone muxuu ahaa frontal bone zygomatic bone muxuu ahaa lacrimal bone palatine bone muxuu ahaa maxillary bone soo marka way kala baxsan yihiin laakiin markii cunuga uu dhasho uu weynaado ayaa lafahan isku dhagdhagaan macnaha suture ay sameeyaan oo adag soo marka that's why oo keentay marka dhowr laf oo kala duwan soo marka qaybtan kore oo roofka ah waxa waa frontal lobe-ka qaybtan oo dhexdan ay ku jirtaa hooskan macnaha hadii kan oo kale la gooyo oo kale gudahan waxa ku jiro sphenoid bone marka waxa waaye laf oo aad iyo aad complex u ah sphenoid bone daarta inaad baratid sphenoid bone anatomy google ku qor ama youtube ku qor oo si fiican ugu fahamtid marka waxay leedahay greater wing ama gees weyn iyo macnaha lesser wing iyo gees yar soo marka geeska weyn iyo geeska yar dhexdood ayaa waxaa kasoo dhex baxo nerveyaal badan iyo blood vessels soo marka sphenoid bone-ka wuxuu posterior border ayuu ku yaalaa sidoo kale waxaa jira ethmoid bone oo dhexdan ku taalo iyo maxillary bone meeshan ku taala lacrimal bone meeshan ku taala muxuu ahaa palatine bone meeshan ku taala soo marka saan arkeyno dhowr laf ayaa ku wareegsan soo marka su-aasha isweydiin karta ayaa waxay tahay maxay muhiimadeedu tahay macnaha maxaa clinically oo relevant ah haddii qof xanuunsan oo kale oo dhaawac soo gaari karo waxyaalaha ay tahay qofka inuu ogaado clinicianka maxay tahay waxaa jira dhowr laf oo aad iyo aad u jilicsan oo meeshan ka mid ah gaar ahaan muxuu ahaa maxillary bone oo qaybtan hoose ah oo ka hooseeyo maxillary sinus oo ah meel eber ah oo infectionka qaar uu ka dhaco oo loo yaqaan sinusitis marka meeshaas waxay u nugushahay dhaawac inuu soo gaaro sidoo kale ethmoid bone oo ah meeshan oo dhexda macna medial border ama medial wall oo muxuu ahaa bony orbitka waa meel aad iyo aad u khafiifa xataa haddii wax yar oo aad riixdid oo kale oo jabin kartid waxaa loo yaqaanaa lamina barbarisha oo ah xaansha oo kale macnaha laf oo waxa waaye oo aad iyo aad u jilcan soo marka meesha waxaa ka dhici karta waxay tahay in haddii feer yar qof weji isha loogu dhufto ama haddii banooni aad iyo aad loo soo macnaha oo qof oo aad iyo aad usoo tuuray oo qof weji ay kaga dhacdo ayaa qofka waxaa kasoo gaari kara in ethmoid bone-kan fracture uu ku dhaco oo ay jabto oo isha iyo muruqyadii ku dhex jiray ama nerveyaasha meeshan ku dhex jira ama xididada meeshan ku dhex jira ama faadka meeshan ku jira oo gudaha ay usii galaan macnaha laftadii meesha ay dilaacdo oo geeskan ay dilaacdo ama hoosta ay dilaacdo waxaa fahmi kartaa in waxa meeshan ku jira ay hoos aadayaan ama geeskaas ay aadayaan taas maxaa dhici karto in muruqyadaas oo dhaqaajinaya isha qaar ka mid ah
muxuu ahaa oo uu ku dhacdo macnaa ischemia dhiiggii oo geenaya inuu kala xirmo oo uu go'o oo uu dhinto muruqii marka muruqii isha dhaqaajinaya uu dhinto ama qaar ka mid ah xididadii meeshan in ay jabaan oo laftaas jabtay oo dhaawac gaarsiiso oo xididkii hemorrhage uu sameeyo isla markaas ischemia ay ku dhacdo muruqii oo dhiiggaas uu gaarsiinayay waxaa kaloo keeni kartaa pressure zaid ah meeshan inuu ka dhasho oo ish oo dhan oo hoos ay aado macnaa laf weyn haddii ay jabto ish oo dhan hoos ay aadi kartaa ama geeskaas ay aadi kartaa ama gadaal ay aadi kartaa taasoo ku xiran macnaa meesha jabtay haddii kor ay jabtay haddii geeskan uu jabay haddii geeskan uu jabay haddii geeskan uu jabay ha ahaado dhaawac walba oo meeshan soo gaaro muhiimadda waxay tahay CT scan qofka degdeg in lagu saaro gaar ahaan ciyaalka yaryarka ah oo u nugul muxuu ahaa dhaawaca inay soo gaaraan oo muxuu ahaa ethmoid bone-ka ama maxillary bone taasoo keeni karta cunugii marka in oo isha uu beelo ama dhaawac uu soo gaaro muruqyadii isha dhaqaajinaya uu noqdo cunugii isha aan dhaqaajin karin oo ay ku dhacdo waxa loo yaqaano diplopia oo ah in cunugii markii meel uu fiiriyo oo laba oo image ama laba sawir oo kale inuu arko macnaa laba indhood oo kale inuu noqdo oo hal shay uusan arkaynin oo meel uu fiiriyo oo laba shay la noqonayaan soo marka dadka waaweyn waxaa muhiim ah in CT scan la saaro laakiin ayaga emergency uma aha sida dad ciyaalka oo kale badanaa dadka waaweyn way kasoo qabsadaan laakiin ciyaalka yaryarka ah oo banooni oo aad iyo aad loo soo tuuray sida tennis ball oo kale ama haddii ciyaal ay isdagaalaan oo feer lagu dhuftay oo isha ay soo gaduudatay oo muxuu ahaa hemorrhage meesha uu ka dhacay waa muhiim oo CT scan cunuga in la saaro si isha uusan ku beelin soo marka saan soo sharaxnay meesha ugu nugul inuu dhaawac soo gaaro waxaa waye medial wall ama qaybta macnaha oo dhexda xigta oo uu ku yaala ethmoid bone-ka ama maxillary bone waa meesha ugu jilicsan oo dhaawacyada ay ka dhacaan haddii oo meeshan jug ay soo gaarto oo trauma ay soo gaarto bony orbitka soo markasaan arkaynay bony orbitka waxaa ka buuxa faatka hadda aan soo sheegaynay waxaano dhan waa faat oo cushion u sameynaya macnaa sida oo barkin oo kale waaye oo ka ilaalinaysa in dhaawac uu soo gaaro soo marka faatskaas iyo laftaas uu ku jira waxaa ilaahay ugu talagalay meesha inay ku ilaashanaato laakiin dhaawac ayaa soo gaari karo oo muhiim ay tahay baaritaan in qofkii lagu sameeyo oo raaja ma ah macnaa CT scan ayaa aad muhiim ah macnaa gold standard oo orbital blow fracture oo lagu diagnose gareeyo ayaa waxaa ah CT scan kaasoo marka qofka surgeonka oo go-aan ku gaaraysa in qofkii surgery oo emergency ah lagu sameeyo ama in go-aan lagu gaaro in waxba lagu sameynin oo observation lagu sameeyo oo monitoring lagu sameeyo haddii oo qof weyn uu yahay dhaawac halis inuu soo gaarin laakiin haddii cunug yar uu yahay oone dhaawac gaaray ama muruqyada sida lateral rectus ama inferior rectus oo kale haddii oo lafta dhexdeed uu ku dhex jiro oo ischemia halis ugu jiro waxaa muhiim ah qalin degdeg in lagu sameeyo qofka dhaawac uu soo gaaray si lamid ah waa dhowr sawir kale waxaan arkaynaa isha markii oo kan waxaa waaye ishii oo gudaha loogu tagay oo muruqyadii oo extraocular muscles oo gudaha loogu tagay laakiin intaan la gaarin ka hor waxaan arkaynaa fat tira badan oo ku dul wareegsan soo marka ish aad iyo aad ay u ilaashan tahay macnaa laf oo ku dul wareegsan oo ilaalinaysa fat oo ku dul wareegsan laakiin mushkilada jirta waxay tahay laftaas ku dul wareegsan ayaan ahayn gaar ahaan qaybta oo macnaha inferior roof iyo medial macnaha inferior wall iyo medial wall ay aad iyo aad u jilcsan qaybta hoose iyo qaybta oo dhexda xigta ayaa u nugul dhaawac inuu soo gaaro oo muhiim ay tahay marka in haddii oo qofkii feer oo aad iyo aad u xoog badan ishii loogu dhuftay oo ishii ay soo gaduudatay ama xitaa haddaysan soo gaduudanin ciyaalka problemka jirta ayaa waxay tahay sometimes ma lagu arkaayo dhiig oo isha soo galay laakiin tan ugu muhiimsan aad waxay tahay haddii lagu arko isha oo qaybta cad macnaa iskleeraha oo banaanka yimid oo isha kor ay aaday kaas ayaa wuxuu yahay marka emergency cunugii in oo si degdeg ah CT scan loola ordo oona emergency surgery lagu sameeyo haddii oo muruqyadii oo muxuu ahaa rectus macnaa muscles iyo ishiiba haddii hoos ay sii aaday ama dhexda haddii aaday oo ay samaysay macnaa herniation soo marka waa waxaan soo sharaxnay protection ay u samaysan yahay sidoo kale isha waxaan soo sheegnay inuu gees u yahay laakiin waxa dhexda ku haya inuu yahay extraocular muscle oo ka dhigaya in oo isha medial ay joogto oosan gees uga dhaqaaqin sidoo kale macnaha meeshan oo bony orbitka ah wuxuu u yahay macnaa meel ay ku dhagaan muruqyada oo extraocular muscle waxaa waaye muruqyada dhaqdhaqaajiya isha oo midig bidix
kor hoos u dhaqaajiya ama dhexda inay joogto ishaada oo ku suurtagelinaya. So marka waxaa qiyaasi kartaa meeshan inuu yahay sida pyramid oo kale. Pyramid waxaa waaye meeshan oo Egypt oo kale masaarida markii lasoo sawir oo arkaysid pyramid marka waxaa kasoo qaadi kartaa meesha base ku fadhiyo oo kale inuu inta yahay pyramid ku fadhiyo oo intan uu yahay macnaha lateral wall, medial wall, muxuu inferior wall, muxuu ahaa superior wall, oo meesha apex-ka ah oo iskugu tagaan inuu yahay meeshan gudaha ah oo ay kasoo baxaan optic canal iyo meesha oo ay macnaha kasoo baxaan origin-ku uu yahay dhammaan extraocular muscles-ka ayaa meeshaas macnaha ayaa origin u ah ayagoo meesha kasoo baxaya kadibna oo macnaha insertion ku sameynaya ama soo dhexgalaya muxuu ahaa isha, taasoo marka ay ku jiidayaan midig ama bidix ama hoos ama kor ay ugu jiidayaan. Muhiimaddu waxay tahay marka macnaha qaybtan oo meeshan oo boniga ah ama lafahan protection ay u yihiin, sidoo kale muruqyadaas oo muxuu ahaa isha dhaqaajinaya ayaa waxay u yihiin origin oo muruqaas uu kasoo bixi karo oo isha uu ku jiidi karo, sida macnaha waxay u noqonaysaa aanka sida meel wax oo lagu jiidi karo oo kale. So markan waa iska diagram kale oo aan ku arkayno maxillary bone, muxuu ahaa sphenoid bone oo meeshaan ku arkayna greater wing iyo lesser wing. waxaan ku arkayna zygomatic bone, frontal bone, muxuu ahaa lacrimal bone, isthmoid bone oo meeshaan aan ku arki karin laakiin oo meeshaan medial ka xigta. So marka wuxuu ku sheegayaa oo kaliya macnaha inta inay yihiin lafo tiro badan isku imaaday oo aad iyo aad u jilicsan, macnaha lafo aad iyo aad u xoog badan ma aha. laftan oo maxilla qaybtan hore waa adag tahay, zygomatic qaybtan hore waa adag tahay, frontal qaybtan hore oo macnaha rimkan hore way adag tahay, laakiin markii gudaha usii gashid waa meel aad iyo aad u jilicsan. maxilla markii gadaal usii socotid hoostiis waxaa ku jira maxillary sinus oo ah meel eber ah oo u nugushahay isha haddii dhaawac u gaaro hoos macnaha u bixi karto. ethmoid bone waa laf oo aad iyo aad ayada sida xaansho oo kale ah oo gacantaada aad ku jajabin kartid. marka waxaa qiyaasi kartaa haddii banooni aad iyo aad u xoog badan oo qofka isha loogu dhufto ama dhagax xataa loogu dhufto ama feer aad iyo aad u xoog badan qofka isha loogu dhufto in ishii oo geeskan oo ethmoid bone qayb kamid ah ay jabto ama maxillary bone hoos ay jabto, ama haddii gadaal ay u baxdo macnaha sphenoid bone oo kale gadaal ay baxdo oo meeshan hemorrhage uu ku dhasho oo macnaha dhiig uu ku daato oo meeshii enlargement ay samayso oo xataa ay dhex karta ishii banaanka inay usoo baxdo haddii hemorrhage-ka gudaha uu yahay oo pressure oo gudaha uu ka yimid oo hore uu soo baxo. macnaha waxay ku xiran tahay lafta jabta ee ku xiran tahay macnaha haddii hadalka murtidiisa oo aan soo gaabino lafta tan bidix macnaha tan medial inay jabtay ethmoid bone-ka ah, tan inferior inay jabtay oo maxillary bone ah, tan gadaal inay jabtay oo muxuu ahaa sphenoid bone-ka ah. si walba ha ahaato gold standard CT scan qofka in la saaro oo lagu jeegareeyo ama survey loogu sameeyo dhibaatada gaartay, kadibna oo surgery lagu sameeyo ama monitoring in lagu sameeyo haddii qofka uusan u baahnayn oo muruqyadiisa iyo xididadiisa oo kulli oo intact ay yihiin dhaawac uusan kasii gaarin ilaa inflammationkaas iyo dhaawacaas uu kasoo qabsado. so kana waa waxa aan sheegaynay marka meeshan waxaa waaye optic canal oo meeshan uu kasoo baxaayo. meeshan dhan marka waxaa meeshan waxaa macnaha superior orbital fissure, meeshan lesser wing of waxaa ku yaala sphenoid bone, intan waxaa ku yaala greater wing oo sphenoid bone. meeshan marka waxaa kasoo baxa dhowr nerve, intan waxaa kasoo baxa optic nerve, kulligood isha ay soo aadaan. waxaa qiyaasi kartaa in muruqyadaas oo isha dhaqaajinaya iyo nerveyaashan gudaha inay ka yimaadeen oo hor computerkan hore ay usoo socdaan oo kale ayaa qiyaasi kartaa. muhiimadan waxay tahay inaan ogaano macnaha nerveyaal badan iyo xidido badan inay meeshan kasoo baxayaan oo isha ay soo aadayaan, dhaawac walba uu soo gaaro xididyadaas iyo nerveyaashan inay u nugul yihiin iyo xataa muruqyadaas inay u nugul yihiin dhaawac inuu soo gaaro. sababtoo ah haddii muruqii oo laf uu dhexda ka galo oo geeska oo medialka ah ama hoos u aado oo xididkii geenayay oo dhiig u keenayay uu kala go-o, ama haddii meesha macnaha istag uu ku noqdo oo dhan uusan u bixi karin in muruqaas uu dhiman karo oo muxuu ahaa dhiig la-aan uu dhiman karo, ama nerveyaasha oo xidid u keenayay innovationka muruqyadii in dhaawac soo gaari karaan oo dhiman karaan. marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah marka qofka in baaritaan loogu sameeyo maadaama oo nerveyaashan tira badan iyo xididaan tirada badan ay u nugul yihiin dhaawac inay soo gaaraan. so marka dhaawac ugu muhiimsan ee isha soo gaari karo oo hadda aan sheegaynay qofka feer haddii isha loogu dhufto, ama haddii banooni isha ugu dhacdo, ama haddii qofka meel xataa uu kasoo dhaco oo trauma ay ka gaarto, macnaha accidentiga wuxuu u dhici karaa nooc walba, macnaha nooc walba ayuu noqon karaa. accidentigaas marka oo isha haddii oo dhaawac usoo gaaro oo lafahaas oo ethmoid bone oo kale
oo isha gudaha u laabato isha marka waxa waaye qiyaas kartaa sida tennis ball oo kale haddii tennis ball oo aad iyo aad macnaha oo pressure badan loo saaro maxay samayn kartaa banaankii oo isha soo taalay macnaha orbitkan oo banaanka soo yaalay haddii waxa aad ku dhufatid wuxuu noqonayaa wax macnaha pressureka dhexda uu ku laabanayo wuxuu aadi karaa dhanka bidix dhanka hoose dhanka gadaal soo marka pressurekaas oo isha uu isku laabtay oo volumekiisa macnaha u yaraaday wuxuu usii gudbinayaa dhanka oo medialka ama dhexda ama hoos macnaha wuxuu sameynayaa in uu isku laabto oo haddii gacanta tennis ball oo kale hadda macnaha oo ku samaysid pressure ku macnaha isku qabatid contraction ayuu sameynayaa macnaha contraction kaas ku meel inuu aada distortion ayuu sameynaa macnaha distortion waxa waaye shape-kiisa inuu isbedelo shape-kaas isbedelay marka pressure-kaas oo xoog ku dhufatay feerta loogu dhuftay oo kale ama banooniga loogu dhuftay waa in oo relaxation uu sameeyaa oo meel kale force u gudbiyaa macnaha force-gaas wuxuu usii gudbayaa marka ama expert bone ama maxillary bone kaas marka orbital blowout fracture loo yaqaano marka wuxuu keenayaa in meel ka mid ah medial wallka ama inferior wallkii oo dhaawac soo gaaro orbital rimkana marka dhaawac ma gaaraya macnaha qaybta hore oo circle-ka ah orbital rimka waxaa laga wadaa meeshaan waxaa jira dhaawac loo yaqaano orbital rim fracture laakiin orbital blow fracture orbital rimka wax dhaawac gaaraya malaha dhaawac uu gaarayaa medial wall ama inferior wall ama macnaha ama posterior wall so marka orbital blow fracture markii laga hadlayo medial wallkaas ama inferior wallkaas dhaawaca soo gaaray ayaa marka dhaawac weyn gaarsiin kara gaar ahaan dadka dhalinyarada sababtoo ah dhalinyarada ayaa u badan inay cayaaraan cayaaro halis ah ama inay isdagaalaan oo isha ama wejiga dhankan oo badaxda ah oo feer iskaga dhuftaan oo ishii muxuu ahaa ay ka jabto saan hore usoo sheegnayne CT scan ayaa ah gold standard oo diagnosis lagu sameeyo sababtoo ah dhiig badan ayaa ku daadan kara maadaama xeetidaas badan oo meesha kasoo baxaya oo dhaawac soo gaari kara ay jabi karaan kan ugu muhiimsan oo qof clinicianka ah ay tahay inuusan marna oo miskarinin ayaa waxay tahay midkan loo yaqaano wide-eyed blowout fracture macnaa wide-eyed blowout fracture badanaa ciyaalka ayaa lagu arkaa ilmaha oo cadka oo isha oo kor aaday macnaa isha cadkeed ayaa kor aaday taas marka waxay muhiim u tahay in cunugii oo dhaawac uu halis ugu jiro in isha uu beelo oo u baahan tahay in surgery oo degdeg lagu sameeyo oo CT scan la saaro si cunugii oo uusan u lose gareenin haddii istiraadid okay waayo waa iska fiicnaan doontaa waa fiirinaynaa haddaad sugtid 48 hours ama 60 hours waxaa laga yaabaa in oo visionkiisi totally ah oo ama ocular muscles qaar ka mid ah inay dhintaan oo cunugii uu noqdo cunug oo forever diplopia ku dhacdo oo laba indhood oo laba shay arkaya haddii meel uu fiiri aan dhaqaajin karin maadaama aad daahaysay in diagnosis ku samaysay oo muruqyadii kuwa qaar ka mid ah oo trap ay noqdeen oo meel ay ku xirmeen sawirkan marka wuxuu na tusaaya orbital blow fracture oo isha oo muxuu ahaa hoos ay aad macna meeshan waxaa arkaynaa haddii kan aa fiirsid ishaan hadda il oo muxuu ahaa orbitkan orbit oo intact waayo dhaawac uusan gaarin waxaan meeshan arkaynaa maxillary bone oo aad iyo aad borderkiisa oo clear u yahay laakiin haddii meeshan ay maatid waxaan arkaynaa maxillary boneka oo borderka oo hoose ahaa in ishii ay kasoo dhex baxday ama ocular muscle ay kasoo dhex baxeen taasoo marka oo u baahan in oo muxuu ahaa assessment lagu sameeyo iyo muxuu ahaa surgery lagu sameeyo meeshan waxaan arkaya marka ethmoid boneka ayaan arkaynaa macnaa ethmoid boneka waa laftii aan idin sheegayay in sida xaanshida oo kale ay tahay sababtoo ah waa sida oo honeycomb oo kale macnaha honeycomb waxaa waaye shay aad iyo aad u baqbaqsan oo sida sponge oo kale ah oo aad iyo aad macnaha oo soft ah oo u nugul inay dhaawac soo gaaro laakiin hadda isha oo dhaawac soo gaaray meeshan arkayno waa maxillary bone oo meeshan uu ka soo baxay maxillary sinus ayuu isha dhan macna maxillary sinuskii hoos usoo gashay oo muruqyadii oo isha dhan dhaqaajinaya halis ugu jiraan inay dhintaan haddii oo meeshan trapment uu ku dhaco oo qofkii oo ishiisa dhaawac soo gaaro oo irreversible ah marka cashirka meesha inuu egyahay waxaan u maleynayaa inaad fahamteen oo waxaa ka fahimteen cashirkaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu